Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal aad iyo aad aa u mahadsantihiin kulanti wacan oo wanaagsan maanta waxaan dul istaagaynaa filimkeeni musalsalkii dhaxal oo ahaa runtii musalsalka ugu cajiibsanaa ee Soomaali soo saarto waxaanu ka dareemaynaa sidii loo wada sugayay iyo siduu noqday musalsalka qaybtii hore markay ku dhamaatay qayb cajiib ah oo dadku dhan ay wada xiiseynayaan maantana waxaa noo soo baxday season 2 iyo xilqadiisa koowaad aan soo wada daawanay marka season 2 ayaa kor istaagaynaa maanta saaxiibayaal waxaan wada arkaynaa season 2 oo ka bilowmanaya raadinta Gallad Diiriye saaxiib qaybtii hore waxaa ogeen Gallad Diiriye oo la afduubtay annagoona weli xaqiijin ama aan garan cidda afduubtay ayuu filimka dhamaaday qaybtan waxaan ku arkaynaa oday Rooble iyo Diiriye oo raadinaya wiilkooda ayagoo ku kulmaya saldhigga ciidanka oday Rooble sheekadii hore u dhacday inuu iska ilaawaya asagoo rabo inuu salaamo Diiriye ayaa ka uga dhigaya baasha oday Rooblena waxaan arkaynaa asagoo waxaanu ka dareemaynaa isagoo xanaaqsan inuu meeshaas ka tagayo oday Diiriye oo u sheegayo Rooble wiilkaas inuusan dhalin waxaan uusan u ahayn hooyadiis uu dayacay oo u sheegayo inuu ammaan siiyo ayaan arkaynaa sidoo kale waxaanu arkaynaa Haaruun oo ku camiranaya wiilal oo baadiye laga keenay isagoo su'aalaya intee ka timaadeen intee u socoteen maxaa soo doonteen maxaa qaban kartiin iyo su'aalo noocaas ah runtii waxaanu dareemaynaa labada wiil ka yar inuu rabo u imaado inuu guursado runtii Haaruunna markaas uu ku camiranaaba ninkii ka weynaa wuu jooga aadi maxaa kaa waalay marka kalena waxaan arkaynaa Baariye oo xanaaqsan Baariye maan magaceeda Manaal oo xanaaqsan ayaan arkaynaa runtii wax ka xanaajiyay iyo wixii ku dhacay iyo waxaas dhan anagana ka warqabin waa la sasabaa way diidee wayna meeshana ka kacee qaybta kale waxaan arkaynaa Siiri oo walwal u daaran yahay iyadoo ka fikiraysa waxay samaysay iyo wixii dhacay iyo wixii dhici doona Riifto saaxiibteeda waxay taagan tahay saaxiibay saan ma ku qumanid maxaan kugu dhacay jacayl maan kugu dhacay markaan camal Soomaalidu waxay ku maamaadaa ninaan waxba ogeyn Ilaahay ma cadaabo isla meeshaasna waxaan ku arkaynaa gabar la hadlaysa saaxiibkan Qandac oo la sheegay inuu taariibay muusana taariibin dadku been ku cabaayay waxaa loo sheegaa booskiisii qof ka wanaagsan in la keenay oo lagu bedelay isla qofkii asagoona loogu dhiibayo oo waana xariif magaalo uu nala hadlayaa asagoona meesha xoogaa ku shactiraysanayaan xariif magaalo waa uu ku qarxinaa inuusan joogin Mareykanka uu joogo Malaysia dadku beenta ku cabaayo meesha ayagoo dadka qadeenaya oo xoogaa shactiraysanaya waxaa soo imaanaya maamulaha shirkadda asagoona ka kicinaya oo dhahaya una sheegaya dambe inaysan meeshan ku qadeen karin qayb kale waxaanu arkaynaa Siiri oo aabaheed la joogto goor cisho ah ayadoo cashada u keenaysa meeshaas ayaana lagu soo wacayaa loona hanjabayaa loona sheegayaa hadday sheegto sirtaas in la dili doono ayada iyo aabaheedba ayadana suuza aabaheed u dareemin ayay wax iska dhigaysaa inay la hadlayso gabar saaxiibteeda ayadoo dhahaysa haya abaayo insha Allah mar kale ayaa ku soo wacayaa bye bye isla meeshaas aabaheed ayay waxay weydiinaysaa su'aalo ay ka mid yihiin aabe qof haddaad rabtid inaad badbaadisid qof kale ma u dhibaateyn kartaa sidoo kale qof haddaad rabtid inaad caawisid asna qof kale ma u dhibaateyn kartaa ama wax ma u xadi kartaa aabaheed ayaa yaabaya oo una sheegaya inaysan saan caadi ku ahayn ee ma fiican tahay oo ku dhahaya ayadana way u sheegaysaa inay fiican tahay aysan waxba ka khaldaneen sidoo kale qayb kale ayaa waxaana ku tusayaa ciidamo ka socda CID-da oo ku wareysanaya maamada Gallad dhashay waxay weydiinayaan su'aalo ay ka mid yihiin maxaa guriga ugu soo guurteen maxaa lagu qabsaday ma inii sheegay iyo su'aalo noocaas ugu dambeyn ayagoo weydiinaya telefoonkiisa inay u keenaan xoogaa ayagoo ka caaga jiidaysa ugu dambeyn way u keeneen markay aragto inay yihiin ciidamo CID qayb kalena waxaanu ku arkaynaa Gallad aabiis oday Diiriye oo seexan la hurdo kasoo dhici weysay walwalaya waxa uu sameynaa waa uu kacayaa waa uu soo weysaysanaa waanu iska sunaysanaa asagoo Ilaahay baryaya sidoo kale waxaanu arkaynaa Duniyo oo aan weli soo naaxin oo isbitaalka ku jirta ayagoo la joogaan waalidkeed iyo walaalaheed odaygan Lowkana asaga wixii murugsan iyo wixii dhaawacan iyo waxaas dhan sheeka ma ka gelin lacag le u daranba iyo inuu shaxaatamo isbitaalka ayagoo jooga Farxaan ayaa waxa uu u sheegaa inuu baxo uu soo xariiftamo meeshaasna hooyadiis ayaa ku dhahaysaniyo aadi maxaa kaa khaldan hormaan qof weyn aan noqonay oo mas'uul ah oo ciidan aan soo shaqeynay duniya hadday soo kacdo waxay u baahan tahay waxa loo baahanaa marka niyo aadi maxaa kaa khaldan camal ugu dambeyn saaxiibayaal gabagabada muuqaalka waxaa jira su'aalo badan oo la isweydiinayo sida Gallad yaa afduubtay ma abtigiis baa ciidamada usoo adeegsaday oo uu ogyahay odaygan meesha uu wiilku ku xiran yahay oo dadku shax u degaya ma ciidanka afduubtay ma tuugadii yaa wadatay
su'aalo badan oo noocaas oo la isweydiinaya jirta.